cabdi aad iyo aad ayaad mahadsan tahay kulankan aan maanta kulanay aniga magacayga waa Axmed Xasan Tawxiid waxaan ku magac dheerahay Axmed Tawxiid Helsinki waxaan deganahay laga soo bilaabo 94 ilaa hadeerna waan deganahay waxbarashadaydu waxaan haystaa shahaadada master degree oo business administration ka waxaan kaloo haystaa khibrad 10 sano ah oo 2011 barnaamij wadankan Finland laga abaabulay oo leadership academy ah oo runtii aan fursad u helay oo markaa la raadinayay dhalinyarada labada luqadood ku hadla Swedish iyo Finnish-ka aan fursad ugu helay in la igu daro oo ilaa maantana aan ku jiro barnaamijkaasna danta laga lahaa waxa ahayd in yani leaderska mustaqbalka Finland soo diyaariyo xirfadda shaqo aan leeyahay waxa weeye anigu business consultant ayaan ka bilaabay ingiriiska London baan kasoo shaqayn jiray 2009 markaan Finland kusoo noqdayna waxaan bilaabay inaan shirkad anigu aan leeyahay shirkadii ugu horeysay aan bilaabay waxay Hassan Consulting oo fikirkeedu ahaa qaabkan consultingka shirkadaha looga iibiyo solutionka shaqaaleysiinta taas ayaan ka bilaabay 2009 markaan Finland dib ugu soo noqday 2 sano kaliya ayaan ingiriiska deganaa oo khibrad aan ka soo qaadanay inta wixii ka dambeysay ilaa maanta waxaan ku jiray qaybaha kala ah qaabka shirkadaha SME-ga loo yaqaan kubcinteeda iyo shaqaaleysiinta ajaanibka iyo dadka internationalka ah sida ardayda jaamacadaha wadankan u yimaada alxamdulillah 2017 ayaan wadankan marketka shaqada taariikh ka sameynay oo aniga laba wiilaan jaamacad isla dhigin jirnay aan saaxiibanahay ayaa waxaan u aasaasnay shirkad la yiraahdo Find Work shirkadaasi focus waxay saareysay dadka ajaanibka ah inagu waxaanu qaadanaa package-ka ajaanibka ah ajaanibku wuxuu noqon karaa yani intaas oo qaybood buu kala geli karaa yani laakiin inagu markasta ama finishku xataa way naga dhaadhiciyaan marka kelmadan la isticmaalayo maaha muutayaadka la isticmaalayo laakiin anagoo fahansan in dadku ay kala duwan yihiin dad dhalinyaro wadanka ku dhashtay ay jiraan dad sanad jooga dad guur ku yimi dad waxbarasho ku yimi package-ka anagoo kala saarayna ayaa waxaan ku guuleysanay shirkadaha private-ka wadankan ugu waaweyn inaanu heshiisyo ka helno concept-geena u galno alxamdulillah maanta oo 2021 lagu jiro waxaan nahay shirkadda kaliya oo suuqa shaqada ku takhasustay dhinaca ajaanibka internationalka dhalinyaro badan waan uga faa'iideynay fursadaas dad badanna waa soo socdaan runtii waa dareemi kartaa marketka Finland ee shaqada sidoo challenge u yahay anigu shaqadeydii ugu horeysay waxaan tuuri jiray lehtiyaaq kaluga waa taqaanaa oo guryaha 95 Helsinki waqtigaasna waxaa jirtay cunsurinimo yani aad u kulul oo yani hadeer waxaanu maraynaa inaad qofku option u heli karo shaqada uu rabo laakiin waagaas xataa waxa adkeyd in qofku shaqada CV shaqada CV waa shaqo fiican weeye oo qofku khibrad ku helayo inaad shaqada heshid kaliya adkeyd oo waxaan xusuustaa anoo Swedish iyo Finnish ba ku hadla way ugu adkaan jirtay shaqo CV inaan helo shaqadii labaad aan helay waxaan xusuustaa anoo Lukiyada dhiganaya oo ardaydii Lukiyada aan isla dhiganaynay oo Finnish Swedish u badaa in waasta ku helay shaqooyin faamiyadooda ama shirkadahooda ay kaga heleen aniguna aan markaa shaqo aad u rabay waagaas dadkuna way xusuustaano 2002 ciyaarihii koobka adduunka ayaa socday oo qofku wuxuu jecel yahay inuu asxaabtiisa waqti la qaato yani aad qof dhalinyaro tahay inaad xoogaaga maalatid waxay noqotay inaan shaqo ka dalbado shirkadda Stol ajaanib kuma jecleen waagaas yani taariikhiyan ayaan ka hadlayaa yani suuqa shaqada halganka aan u soo marnay waxaan shaqo ka helay Metro Sivoya ayaan waxaan ka helay Itakaskus Metro Sivoya waad garan kartaa waa shaqo vuorotio marna waxaa la galaa aamu iyo iltada waxaa la galaa ama galabta waxaa la galaa 2 ilaa 10 waqtigaasna cunsurinimo ayaa jirtay gacan maanta mid qalin ayaa jirta waxay aan jirtay marka ay vuorada ku sii dhamaanaysa ama shiftigu ku sii dhamaanayo inaad u sii diyaar garoodid in meesha lagu garaaco ama dagaal aad ku gashid alxamdulillah wadada dheer aniga kaliya ma soo marinay Soomaalidii waqtiga wadanka soo gashay way soo mareen maanta anigu waxaan ahay dadka aaminsan
suuqa shaqada inuu isbedel weyn kusoo socdo isbedelkaas oo ah dhinaca dadka wax shaqaaleysiya ama shirkadaha ha noqoto ama public sector ha noqoto iyo dhinaca dadka shaqada raadinaya ah sidii matching la iskugu samayn lahaa hadday noqoto xagga aqoonta xagga xirfadda xagga luqadda taas ayaa runtii anigu takhasuskaygu yahay tan kaloo iisii dheerna waxa weeye waa shirkadaha soo kobcaya inaan kor u soo qaadno dhowr shirkadood oo dheer case kala duwan waan ku guuleysanay alxamdulilah qofka bini'aadanka ahi waxqabadkiisa ma soo koobmayo haddii aad marka hore aad kusoo kortay bay-ad ah inaad dadka tacaawintid anigu anoo 8 jir ayaan imi oo agoon ah waddankan alxamdulilah yani aabbahay anoo yar buu dhintay allah yarxamo wixii lagu soo korayna waxay ahayd inaan dadka wax tarno aan wax la yeelin maanta ma sheegan karo yani ma oran karo waxaas weyn baan qabtay sababtaa weli hankayga waxaa ku jira inaan wax ka badan aan qabto waxaan ahay dadka aaminsan in waxqabadkiisa uu muuqdo anigu dhalinyaradii ama dadkii aan shaqaaleysiiyey oo 20 nationality kala duwan Finland jooga ay iskugu jiraan oo aan Soomaali ahayn ayaa maanta jooga waddankan oo ku nool waxqabadkaygu uu muuqdaa yani jaraa'idka waddanka ugu weyn ayuu ku qoran yahay marka laakiin waxaan rajeynayaa in waxqabadkaygu uu ka sii weynaado aan markasta aan ku sii haminaya kullu arrimaha bulshada iyo arrimaha siyaasadda waa ku soo koray oo anigu gurigan ka soo baxay baa wuxuu ahaa guri yani dialogue wada hadal lagu sameyn jiray oo taariikhiyan laga wada hadli jiray waagayga horena maadooyinkan ugu jeclaa iskuulka waxay taariikhda ahayd taariikhda ama historyga haddaad jeceshahayna dee waxyaalo badan ayaa kuu baxaya oo weliba blaska markaan qorayay waagaas yani hadda isbedel badan ayaa lagu sameeyey maadadii aan realiga ka doortay waxay history ay ahayd historyga waddankanna dee markaad aad soo dhigatid axsaabtu iyo qaabkay u kala duwan yihiin qayb bay ka yihiin anigu anoo yar ayaan siyaasadda xiisayn jiray laga soo bilaabo 94tii waddankan haddaan siyaasaddiisa ka hadlo waxaa jirtay doorashadii madaxweynaha 94tii waxaan kusoo kornay annagoo caruur ah oo dee iskuullada dhigta marka waxaa tartamayay Elizabeth Rehn oo annaga xisbiga ARCO bay matalaysay iyo Marti Ahtisaari runtii waxay dee markaas dee ma jirin social media ma jirin waxaa kaliya la akhrisan jiray waxay journaal ama inaad warka wax yar ka daawatid ilaa maalintaas waan ku hamin jiray oo dee markasta waan dhageysan jiray ama akhrin jiray qaabka siyaasadda Finland ay ku dhisan tahay marka aadan gelin siyaasad ama xisbi aadan gelin waa inaad fahmi kartid faham fiican waliba inaad fahmi kartid xisbiga aad galaysid minuska ama pluska uu ku leeyahay yani waxa adiga ka soo gaari kara shakhsiyan waxa adiga ka soo gaari kara aqeeda ahaan waxa adiga ka soo gaari kara hadda dhaqaale ahaan qaacido ayaa jirta oo qofku isweydiiyo intuusan siyaasadda soo galin oo ah anigu ma isku codayn karaa ama loo yaqaano luqadda yani af ingiriiska will I vote for me qofku intuu muraayad isku fiiriyo uu yiraahdo anoo hebela ma isku codayn karaa haddaan isku codayana يعني maxaan isku codeynaya yani qaab noocaas ah jirto training ma soo qaata anigu xisbigan ARCO beed yaraantaydii man galay taariikhna waan ka sameeyay oo waxaan noqday gudoomiyaha dhalinyarada waddankana laba unba siyaasadda lagu galaa adoo deenin waxa finishka u yaqaan yulkiska ama celebrity inta lagu waco oo marka position aad heshid ama de inaad isa soo dhistido de qaybta dhalinyarada ka soo bilowdo kor aad ka bacdi establishmentiga saa ku gashido oo de lagu aamino siyaasadda waddankana saddex ay ku dhisan tahay waa luwada muska aaminaada iyo inaad xiriir fiican aad leedahay yani inaad xiriir fiican aad leedahay xiriirka xagga ganacsiga xagga yani shirkadaha xagga yani ururada ugu waaweyn oo de waddankan ka dhisan xagga xisbiyada inaad leedahay iyo tasaddexaad oo ah inaad mabda leedahay ama qofku wax arvotka loo yaqaan finishka inaad leedahay anigu wax badan ayaan ka fikiray markaan xisbiga ARCO bay dooranay waxaan ku doortayna waxa ahayd waa xisbi minority waa xisbi awood iyo saameyn weyn waddankan ku leh waa xisbi anigoo Axmed oo Soomaali oo waddankan tiro ka yar baahideyda ila fahmi kara tii ayaan ku doortay waana xisbi taariikhiyan ajaanibka soo gacan qabtay aniga waxa naga horeeyay dad Burma ka yimi Bosniankii Chileankii dad soo waraysataan de fursadna waa idin siin doona dadka xisbiga ugu sareeya inaad waraysataan waxay ajaanibka u qabteen
inuu marka package-ka haddaynu Soomaali nahay package-ka ayaynu ku jirnaa xisbigan sababahaas ayaa ugu waaweynaa dee waad fahmi kartaa nin luuqadiisii difaacanaya adigana luuqadaada uu difaacaya يعني حزب الدفاع عنيا دقن كيس culture كيس الدفاع عنيا دي أدينا culture كا ودفاع عنيا ودي سفي عن أيو كوفهميا تاس أيا يوكلفتي حقي دقالها ندي وحزب دقاليه شو السنة هاي ودي وضن كنا سامين وين كله وتاريخ دي سعين أجنهاي وorganization شري إلى إن بقول سنة كبدا مركا إنه وصل عشمات كيني من الصومالي وهو الرئيسي inaynu la jaan qaadno xisbi boqol jira waqti ay qaadanaysaa saad ogsoontaan baadaan dib aan u noqono caadooyinka dadka ajaanibka ay leeyihiin waxa weeye maalin bidix bay joogaan maalin midig bay joogaan yani way adkaanaysaa marka in mowqifkaaga ama mabda'aaga la ogaado wayna kala duwan tahay marka xisbi galaysid xisbigu waa labo marna adaa u baahan oo de intaad u tagtid waxa oranaysaa musharax ayaan rabaa inaan noqdo marna aday ku baahan yihiin xisbigu الحمد لله أنا dhalinyaradan soo bilaabay doorashadii ugu horeysay aan ka soo qayb galay waxay ahayd 2011 tii baarlamaanka ayaan ka bilaabay 2015kiina dee waanigi ku jiray oo markaas doorasho ugu dambeysay waa ma santahay marka su'aasha ugu dambeysay noo dhiman waxay tahay hadda waxaad u tartamaysaa golaha deegaanka wakiilada golaha deegaanka magaalada Helsinki kursiga ku meteli doonto Helsinki ay Soomaali badan iyo ajnabi badan degan yihiin haddii aad fariisato oo ku guuleysato wixii aad ku tala jirto qaado oo ku qorshaysan inaad wax ka qabato hal iyo laba ayada bismillah horta kursigan aan u tartamayo qaacida waxaa jirta shaqada aad u socotid waa inaad ogsoon tahay wax ka horeeya maxay tahay shaqadaasi tahtabadkeeda inaad ogsoon tahay inaad marka hore adigu aad xisaabisid yani anigu maanta dhakhtarnimo ما ضلبن كره سوت هذا ما هيست qualification كذي لكن الحمد لله أنا ما أنت ندي وحقبت كيسة الأركيب أنا هاي شهادة ماستر هيست أنا هاي أرضي مئهي أو دي تكلنا أصعد أنا وحوي سيد كاس دي لحد بقول أكون هلسنكي تكن أيان لم يتأخر وأنا عد كرهت سنة وعد كيجو يعني وأنت صوتك كل دون أقونتي إذا يوحنا سوقت يوقي ميني ayaan ku matali doonaa ayaan ugu tartami doonaa saynu ogsoonahay Helsinki waxay ka kooban tahay 85 mudanayaal ayaa ku jira 85 taasna intaas oo xisbi ayaa ku tartamaya hadda xisbi cusub baa jiro xataa soo baxay liike nit leeyahay oo 2017 aan jirin afkaarta axsaabtana markasta isbedel ayaa ku socda laakiin anigu Axmed ahaan mowqifkan aaminsanahay waxay tahay qofku inuu igu qiimeeyo wax qabadkayga iyo aqoontayda inuu igu qiimeeyo وسن حوق صارين يعني ethnicity iyo waxyaalaha xooga saarin taas ayaa kulli baa aniga number 1 oo runtii waxaan qaban doonana maxaa kamid saynu ogsoonahay wadankan aynu deganahay isbedel weyn ayaa ka socda oo runtii ay badankeed dadkeenuna aysan la socon anigu markasta waxaan rabaa inaan tan aan ka xaqiijiyo meeshan anigu markasta Soomaali baan ahay haddaan positionka ugu seero wadankan aan gaaro ugu sareysa markasta Soomaali baan noqonayaa marka doorashadani waxay ku saabsanaan doontaa aniga dib ii soo celiyo anigu 2017 isma soo sharaxin 2019 isma soo sharaxin sababtaan isku soo sharaxaynay waxay dadka codeeya haba u badnaadeen Soomaali ama cid kasta haadaan iyo musharaxiinta markasta soo sharaxay inay isbartaan oo isla xisaabtamaan ay yiraahdaan 2017 xisbiga waxaanu siinay intaasoo kun ee maxaa nooga faa'iiday anigu aan sharaxnayn oo mandate aan shacab ka haysan baan dhalinyaro 500 in ka badan gaaraysa ayaan shaqaaleysiin taasina waxay ku timi ilaahay mahadiis iyo xisbigayga oo runtii gacan qabtay marka anigu waxaan rabaa fikir in laga wada hadlo la wada xisaabtamo waddankan aynu ku noolnahay baa wax kasta avoin bay maanta go'aankii la gaaray 10 sano ka hor Helsinki carbonki page-keeda waa ka helaya in la wada xisaabtamo codkuna uusan khasaarin sababtoo codku wuxuu khasaaraa laba mar aad u codeysid waxa aadan ka rayn aad u codeysid oo codkaaga khasaaro uu noqdo iyo mar aadan codeyn laakiin in loo codeeyo qofka aad isleedahay dantaada ayuu wadaa danta mustaqbalkaaga ayuu wadaa danta يعني مستقبل كينا دون أيوة وضع تكرار بيننا كسوق بكبير وحوي
doorashada 21 xiise waxa u yeelaya yani qaabkii magaalada loo maareyn jiray ama maamulka ay ku dhisan tahay ayaa isbedelay yani isbedel weyn ayaa soo socda runtii marka campaignkayga aan furo ayaan isbedelkaana kaga hadli doonaa waxaan u baahanahay qofka miiska inoo fariisanaya inuu luuqadda iyo meesha loo socdo uu fahmi karo yani qofku quraanka ilaahay waan wada akhrinaa يعني سورة أقول بدن أين وآخرنا وحوي وفاتحة سمعة الحمد لله بسم الله الحمد لله رب العالمين لكن معناه هذا وحلقيها با يكون دقن كين إن وقتك هاي أما أين فهم سنين مركا أنا هدف كان أصعد وحوي سيد كان وحنا نقدنا أما مانديت كان أصعد وحنا نقدنا مد بالشدة عن متلي دونا يم بالشدة كلا ده آمنته صارت توقفكم مركو عدك وقصية وك آمنة يعني دينيا qofka islaamka waxa lagu yiri ka adinkaaga iyo afkaaga ka amaan helaan qofka mu'minkana waxa la yiri yani waa qofka aad naftaada iyo maalkaaga ku aamintid markaan waxaan aaminsanahay codkaasi wuxuu noqon doonaa cod qofka aniga igu aamina Axmed ahaan inaan faa'iidadiisa u soo celiyo sidaan hadeer aan ugu soo celiyaba iyagoo aan cod siin